أستغفر الله. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhowaada channelka Maansheeye. Insha Allahu tacaala maanta waxaynu kaga hadli doonaa muuqaalkeena kooban bacdan min qaadati almuslimiina alcudamaa, qaar ka mid ah hogaamiyaashii muslimiinta ee aadka u sharafta badnaa. asal ahaan daadu maaha wax qofka ka hor joogsada si uu hadafkiisa ama himiladiisa u xaqiijiyo. mowduuceenan maantuna waxa uu khaas u yahay rag ka mid ah hogaamiyaashii islaamka, kuwaas oo ilaa iyo maanta lagu xasuusto waxqabadyadoodii iyo heerkii ay gaadhsiiyeen dowladihii islaamka ee wakhtigoogaa jiray. mid kalena ogowo, ummad walba dhallinyaradeeda ayaa meel gaadhsiisa. haddii ay dhallinyaradu wanaagsanaato, ummaddaas way wanaagsanaanaysaa oo waxay noqonaysaa ummad guulaysatay oo ummadaha kale la jaarka ah awood iyo dhaqaale iyo wax walba kula tartanta. laakiin haddii ay ummadda dhallinyaradeedu ay eber yihiin oo ay iyagu isku jeedaan islamarkaana aanay garanayn wixii iyaga u dan ah, sida ay dhallinyarteena maanta u badan tahayna wakhtigooga ay geem iyo meelahaasoo lasoo marmaray iyo hebelaayi maxay yidhaahdeen haddii ay wakhtigooga ku lumiyaan, waxaas waa wax iyaga ka maqanuun, dibudhacoogana astaan bay u noqonaysaa. haddaba mucaad binu jabal radiallahu canhu waxa uu ahaa da'da labaataniyada markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam u diray amba uu u dhiibay xukunka dhulka yaman. waxaa intaa kuu sii dheer safiirka ay quraysh lahayd markii uu islaamay ee ay diintii islaamkuna kor u kacday, gaalnimadiina ay hoos u dhacday, ee ay markii ugu horreysay muslimiintu intay gacmaha isqabsadaan ay kacbada kusoo dawaafaan, gaaladiiyo wada arkaysa. waxa ay da'diisu ahayd 27 jir, waxaana uu ahaa cumar binu khadaab radiallahu canhu wa ardaah. mar kalena waxaa ka mid a ducaadii ugu waaweyneyd ee dowladdii cabbaasiyiintu lahayd markii ay soo baxday ee ay dowladdii umawiyiintuna baaba'aysay, abuu muslim alkhurasaani. waxa ay da'diisu ahayd 21 jir markii uu bilaabay qiyaadada amba hoggaanka dacwadda dowladdii cabbaasiyiinta. markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam furtay maka ee uu doonayay inuu daa'if u diyaargaroobo uu tago, amiirkii ugu horreeyey ee uu maka u magacaabay waxa uu ahaa cataab bin usayd al umawiy. haddaba imsay da'diisu ahayd? waxaa la sheegaa in ay da'diisu ahayd 18 jir, waxaana la sheegaa inay 21 jir ahayd. mar kalena markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka soo noqday maka xajatul wadaac kadib, waxa uu damcay inuu ciidan u diro boqortooyadii roomaniyiinta, waxaana uu ciidankaa janal uga dhigay ama hoggaan uga dhigay nin dhallinyar ah oo ay da'diisu ahayd 18 jir, waxaana uu ahaa usaama binu zayd. ciidankaa loo dhiibay usaama binu zaydna waxaa ku jiray asxaabtii waaweyneed sida cumar binu khadaab oo kale. ninkii caanka ahaa isaguna la odhan jiray xajaaj binu yuusuf asaqafi markii uu doonayay inuu furo dhulka hindiya iyo dhulkii kale la odhan jiray asind amba bakistaanta imka, markii ay qayladhaan u soo dirteen dumarkii ay xidhxidheen qaraasnadii dhulka sind yuu u dhiibay ciidankaas. waxa uu u dhiibay inan yar oo magaciisa la odhan jiray maxamed ibnu qaasim athaqafi oo ay da'diisu ahayd 17 jir, waxaana uu furtay dhulkaa weyn. isla mar ahaantaana waxa uu dilay labadii boqor ee ugu waaweynaa oo la kala odhan jiray daahir iyo dawhar, waxaana uu xoreeyey dumarkii ay xidhxidheen ee muslimaadka ahaa ee markii horena xajaaj bin yuusuf qayladhaanta u soo dirsaday. waxaana aynu kusoo gabagabaynaynaa makhlad bin yaziid binulmahlab binu abi sufra oo ahaa hogaamiye uu hogaamiye dhalay oo uu hogaamiye kala sii dhalay, waxaana ay ahaayeen qoys ku caan ah qiyaadada amba hogaaminta. waxa uu qabtay hoggaanka ciidamada. waxaynu ka hadlaynaa hadda makhlad bin yaziid isagoo oo ah 12 jir. waxa uu ku guulaystay inuu furo magaalooyinka qaar, isla mar ahaantaana waxa uu sii watay mihnadiisii hogaamineed ilaa iyo uu dhintay isaga oo ah 27 jir. haddaba ragga aynu maanta kaga soo hadalnay mowduuceenan ee isugu jiray hogaamiyaasha iyo ducaadaba, waxa ay ahaayeen rag dhalinyar ah oo libinka gaadhay nolosha, isla mar ahaantaana aan is odhan weli waad yar tahay oo cumri baa ku hadhay sida dhalinyar badan oo hadda nool ay isugu sheekeeyaan. waxaabad moodaaba in loo sheegay wakhtiga ay dhimanayaan sida ay ugu xisaabtamayaan isleeyiin wakhti baa ku hadhay. warniyahow ma garanaysa wakhti ay geeridu ku imanaysa haddaad nooshahay, wakhtigaaga ka faa'iidee oo kaga faa'iidee wax adduunya akhraba anfac kuu leh, isla mar ahaantaana ha iska noolaan uune adduunyada wax kaga tag. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.